Agaasimaha guud ee adeegga sirdoonka iyo amniga qaranka Hadan-Jire Ridwaan Xuseen ayaa si rasmi ah uga bilaabay Jaamacadda Amniga Qaranka barnaamijka sanadlaha ah ee Dhaxalka Cagaaran. Waxa uu sheegay in dadaaladii dhir-beerista ee 7 sano ee lasoo dhaafay ay dhaleen natiijooyin muuqda iyadoo la beeray in ka badan 307,000 oo geed oo sare u qaaday daboolka kaymaha dalka. ለመጪ ትውልድ የተሻለች ሀገር ማስረከብ ብቻ ሳይሆን በራሳችን እድሜ ውጤቱን የምናየው ዛሬ ተከልነው ዛፍ 5-6 ዓመታት በኋላ ከፍሉ ጥላ የሚሆን ከፍሉ አበባ ሆኖ ለውበት የሚሆን ከሱ ደግሞ ምግብ ሆኖ ለራሳችን ፍጆታም ለኤክስፖርት የምናውለው ስለዚህ ኑሯችንንም አኗኗራችንም በራሳችን የምንቀይርበት ነው። jiilka xiga kaliya dal wanaagsan oo dhaxalsiino kama duulayno balse natiijada dhiraynta waa mid da'deena aanu ku arki doono natiijada ka soo baxda. Geedka la beeray 5 sano ilaa 6 sano ka hor waxa uu noqonayaa mid qaybo isku dhafan leh oo qaybi ay quud tahay dhanna bilicda soo jiidanayo isla markaana hadh leh. Marka tani waxay sahlaysaa inaanu ahaano dal qaab nololeedkiisu sahlan yahay oo gaari doona horumarka uu higsanayo. Dr. Asaf Abiyu oo ka mid ah maamulka xafiiska ayaa cadeeyay in xaalufinta deegaanku ay sababi karto abaar iyo barakac kuwaasoo halis ku ah damaanadqaadka cunnada. Sidaas darteed daryeelka deegaanka iyo barnaamijka dhaxalka cagaaran waxaa loo tixgeliyaa hawl muhiim ah oo xaqiijinta amniga dalka iyadoo sanadkan shaqaalaha oo dhan ay ka qaybgeli doonaan dhir beerista. ችግኝ መትከል ለዛሬ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ለነገ መጪ ትውልድ ጭምር ጠቃሚና አበርክቶ ትልቅ ስለሚሆን ለሀገራችን ለደህንነት ስራም በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የደህንነት ተጋላጭነታችን በሴኩሪቲ ብቻ አይደለም በአየር ጸባይም dhiraynta kaliya ma anfacayso jiilka maanta balse waxay anfacaysaa jiilka berri balse xaalufaynta deegaanka oo keenta roob yari iyo abaar waxay ka dhigan tahay in sare loo qaado wax soo saarka iyadoo bulshada u horseedi doonta cunno yari iyo barakac taasi oo halis gelinaysa ammaanada qaranka. Sidaa darteed dadaalada daryeelka dabiiciga iyo horumarinta lagu bixiyo barnaamijka dhaxalka cagaaran waxaa loo tixgelinayaa sidii hawlgal muhiim ah oo lagu xaqiijinayo isaga filaanshaha cunnada ee qaranka.